markuu sameeyey la tashi ballaaran wuxuu go'aamiyey inuu ahaado wasiirka wasaaradda cadaaladda cabdirisaaq cali cabdi siifigiisoo badan ayuu soo koobaynaa. cabdirisaaq wuxuu ku dhashay ceelgaabo, wuxuu leeyahay 5 carruur ah. 1965kii buu dhashay. waxbarashadiisa 1987 Italian Bachelor degree ayuu ka qaatay jaamacaddii loolan jiray Somali University Agricultural Science afgooyadiisa. 1978 ilaa 1981 wuxuu ka baxay dugsigii sare Sheekh Bashiir. 1969 ilaa 1977 wuxuu ka soo baxay Halaftimo Primary School. shaqooyinkiisa oo aad u badan 1988 ilaa 1989 wuxuu ahaa research by project gobolkii loolan jiray ayuu ka ahaa beeraha. 1989-1991 wuxuu ahaa officer Sanaag Regional Agriculture officer beeraha ayuu ahaa. 1992 ilaa 1996 wuxuu la soo shaqayn jiray injineer loolan jiray Somali Development and Relief Agent Sadra oo ka shaqaynayay Sanaag Region Laasqoray iyo Badhan. 1997-1998 wuxuu ka soo shaqeeyey golaha guurtidu ka soo shaqeeyey. shaqooyinkiisu aad bay u badan yihiin, meelo badan buu ka soo shaqeeyey. halkan wasaaradda beeraha ah oo la talin ah. halkan waxaa ku lifaaqan warqaddiisii dambilaanta tiisa caafimaadka guddida cadaaladda iyo garsoorkuna waxay golaha ka codsanaysaa in wasiirka la ansixiyo. والبدولي عمر علي عبد الله وزير عاصمة markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland markuu ku qoray aqoonta iyo kartida iyo aragnimada uu leeyahay shaqadiisa, markuu arkay inuu hanan karo xilkan, markuu sameeyey la tashi ballaaran wuxuu go'aamiyey in Cumar Cali Cabdilaahi uu noqdo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta. عمر عبد الله waxbarashadiisii markaynu bilowno Camud University Boorama Somaliland Master of Science and Research ayuu ka qaatay 2017 waa fashikiisii weeye. 205 ilaa 207 Erdogan University ayuu ka qaatay Program and Instruction. shaqooyinkiisa waa lecturer weeye Camud Hargeysa iyo University ayuu lecturer ka yahay. 2015kii wuxuu ahaa freelance consultant. March 2015 ilaa 2015 wuxuu ahaa Vice President of Academic Affairs Camud University. 209 ilaa 201 wuxuu ahaa Chief Registrarist Camud University. 208 ilaa 209 wuxuu ahaa Director Network and Quality Assurance. wuxuu aad ka soo shaqeeyey jaamacadda Camud oo ka soo qabtay xilal fara badan. wuxuu ka soo shaqeeyey hay'adaha UNESCO, CFPT, SCF. wuxuu director ka ahaa ama tababare ka ahaa mashruuca la yidhaahdo GPLG. wuxuu ka soo shaqeeyey wasaaradda waxbarashada. wuxuu ka soo shaqeeyey wasiirka caafimaadka xildhibaanada oo gacanta tahay. يا ديدن يا كامسي عمر علي عبد الله وزير عاقبتك وحاس حيستين يا فتح الإمام عندي ما تيجي عند كمان مسك دويه هو عليه مسافة سكينة فرحان هذا الهيبة دويه حياة شغالة اللي بلده أقول الناس هي قاعدة تهيب.
aamusay farxaan cabdullaahi gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha 48 xildhibaan baa ansixiyey ciidamadiidii cid kama aamusay gudoomiyuhu muu coday sidaas waa sax ku cabdinaasir caydiin maxamed wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha xildhibaanada oqol in la ansixiya gacantaa tahay gacanta la dejiyo yaa diiday yaa ka aamusay cabdinaasir caydiid maxamed 48 baa u codeeyey ciidamadii cid kama aamusay gudoomiyuhu muu coday sidaas waa sax cabdinaadir cumar jaamac wasiir ku-xigeenka arrimaha dowladda xildhibaanada oqol in la ansixiya gacantaa tahay gacanta hala dejiyo yaa diiday yaa ka aamusay cabdiqaadir cumar jaamac waxaa ansixiyey 49 xildhibaan ciidamadiidii cid kama aamusin gudoomiyuhu muu coday sidaas waa sax ku yahay fadhigu waa xidhaya waynoo korinta haddii laayida wasiirka cadaaladda xildhibaanada oqol in la ansixiya gacantaa tahay gacanta hala dejiyo yaa diiday yaa ka aamusay waxaa cabdirasaaq cali cabdi wasiirka cadaaladda waxaa ansixiyey 48 xildhibaan ciidamadiidii cid kama aamusin gudoomiyuhu muu coday sidaas waa sax ku yahay